dalka Itoobiya waxa uu waajahayaa xasilooni la'aan siyaasadeed oo daran sidoo kalena waxa uu khilaafyo xoogan xilligan kala dhaxeeya dalalka la jaarka ee qaarkood. Itoobiya iyo Suudaan waxay dhawaan ku dagaalameen xuduudka labada dal. Masar oo biyaha Niilku uga yimaado dalkaas Itoobiyana waxay haatan si weyn ugu gacan saydhay dhismaha biyo-xidheenka xoogan ee Itoobiya ka dhisayso dhankeeda. sidoo kale Itoobiya gudaheeda waxa jira guux iyo dareenno ay qoomiyadaha qaarkood kaga soo horjeedaan hoggaanka xilligan ee Abiy Ahmed. Oromada lafteeda oo hoggaanka dalkaasi markii ugu horeysay taariikhda qabatayna dhexdeeda waxa ka taageen khilaaf iyo waliba tiro badan oo hogaamiyayaal ah oo doonaya iyaguna inay talada dalka kala wareegaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. arrimahaasi iyo arrimo kale oo badaniba waxay dibadda u soo saareen khilaafka siyaasadeed ee haatan Itoobiya dhexdeeda ka taagan iyo waliba kuwa dalalka la jaarka iyo kuwa kale ay wadaagaan biyaha Niilkaba kala dhaxeeya. haddaba muuqaalkeena kooban waxaynu ku eegi doonaa xaaladii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya. dalka Itoobiya ay ku nool yihiin dad kor u dhaafaya 100 milyan oo qof. wadad in badan oo kamid ah dadkaasi ay yihiin sabool maruna wilayay inay qani noqdaan balse xukuumo kala duwan oo military oo dalkaasi soo maray ayaa ragaadiyay dadkaasi horumarkii ay hiigsanayeen. inkastoo Itoobiya marka la eego dhanka xasiloonida uu ahaa wadan aad u xasiloon marka la barbar dhigo dalalka kale ee ku yaala geeska Afrika, balse xilligan arrintu ay ka duwan tahay sidii markii hore ay ahayd. hogaamiyaha ku guuleystay bilada Nobel Peace Prize-ka waa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa haatan mucaaradad xoogan kala kulmaya qoomiyadda Oromada oo uu ka dhashay, taasi oo hogaamiye dhowrahi ay ka soo horjeedaan xukunkiisa. sidoo kalena qoomiyadda Tigray-ga oo nimcada dalkaasi Itoobiya sanado badan kaligeed durduranaysay ayaa haatan ka biyadiidsan hogaaminta Abiy Ahmed. in badan oo kamid ah hogaamiyayaasha qoomiyadaasi Tigray-gu waxay ku shireen magaalada Maqale kuwaasi oo ka soo saaray go'aanka ah in Itoobiya inteeda kale ay ka go'i doonaan haddii aan ra'iisul wasaaruhu u hoggaansamin dastuurka dalkaasi Itoobiya. mas'uulkii ugu sareeyay uguna dambeeyay iska casilay dawladda Abiy Ahmed kana tirsanaa qoomiyadda Tigray-ga waxay ahayd Khayriya oo ahayd afhayeenkii baarlamaanka dalka Itoobiya, waxaanay ku eedeysay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed in dastuurka iyo shuruucda dalkaasi uu garab maray. haddaba Itoobiya kuma koobna khilaafaadka dhexdeeda ka taagan oo kaliya, balse waxay waajahaysaa khilaafaad kale oo kala dhaxeeya dalalka ay la dariska tahay iyo kuwa biyaha Niilka ay wadaagaan. Suudaan iyo Itoobiya dhawaan waxay ku dagaalameen xuduudka labada dal, waxaana maalmihii ugu dambeeyay la arkayay in ciidamo ka socda dalka Suudaan iyo kuwa Itoobiya ka socda ay ku sii qulqulayeen meesha ay xuduudka ka leeyihiin labadaasi dal oo halka khilaafku ka taagan yahay ee isku dhacu ka dhacay. sidoo kale Masar oo dadka reer Masar ay ku nool yihiin inta ugu badan biyaha ka yimaada Niilka, Itoobiya waxay ku eedeynaysaa in biyahaasi ay jidka u gashay isla markaana ay xaddi badan oo biyaha ay leexsatay kadib markii ay ka samaysay meel Itoobiya biyo xidheen weyn oo yareyn doona biyihii aadi jiray dalalka Suudaan iyo Masar. arrintaasina waxay keentay in dawladda Masar ay marar dhowr ay ku hanjabtay in Itoobiya haddii xitaa ay ku fursan weydo ay tallaabo military qaadi karto si ay u badbaadiso muwaadiniinteeda ku nool biyahaasi, maadaama oo dalka Masar in badan oo kamid uu yahay dhul oomana ah. haddaba su'aasha isweydiinta leh waxay tahay Itoobiya ma ka badbaadi kartaa khilaafaadka xilligan dhexdeeda ka taagan ee arrimaha siyaasadda iyo waliba kuwa kala dhaxeeya dalalka kale ee ay wadaagaan biyaha Niilka iyo waliba xuduudaha. aad baad ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalkan kooban ee aynu ku eegnay xaaladii ugu dambeeyay ee qalalaasaha siyaasadeed ee dalka Itoobiya. inta barnaamijkan oo kale aan ku kulmi doono dhammaantiin waxaad ka tagayaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.